kulankan oo soconayay muddo hal maalin ah waxaa agaasinkiisa soo qabanqaabiyay xafiiska maamulka gobolka Awdal kaasi oo ujeedadiisu daarnayd horumarinta arrimaha bulshada sida nadaafadda, qorshaha dhismaha mustaqbalka ee magaalada Boorama iyo arinta madaarka magaalada Boorama. waxaana kulankani dood dheer ka yeeshay madax dhaqameed, cuqaal iyo guud ahaan aqoon-yahano ka soo qayb galay dood dheer iyo talooyin la xiriira horumarinta arrimahaasi. Barsaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro ayaa markii uu soo dhamaaday kulankani isagu ka warbixiyay. maanta waxaanu kulan isugu nimi groups anagoo ah arrimaha horumarinta gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorame. waxa laga wada hadlayay saddex qodob oo kala master balaanka magaalada, nadaafadda magaalada iyo airportka magaalada. dad badan oo madax dhaqameed, ganacsato, deegaanka iyo xukuumadda leh ayaanu iyo shirkadaha qashinka oo isugu nimi. dood baa ka dhacday jaamacadda, waxay noo soo diyaar gareysay doodaas sidii looga wada hadli lahaa. runtii iyada hogaaminaysa jaamacaddu markii ay soo bandhigeen jaamacaddu dhibaatada nooc walba dhibaatadii taagnayd, guruubaan isu sii qaybinay. guruub waliba wuxuu gaar uga wada hadlay hawshii loo qaybiyey. si fiican baan la isla soo gartay. waxa laga bilaabay nadaafadda oo kale. maxaa marka hore dhalay nadaafad xumada? maxaa sidee loo maareynaya? meel wanaagsan baa la isla soo gaadhay. airportkani maxaa hor taagan? sideennu furan karaynaa? magaalada dib balaankii baa ka xumaaday, sideennu hagaajinaynaa? dood wanaagsan baa ahayd markii hore. dood noocyadaas oo kale la qabto. alxamdulillaah rabbil caalamiin, guul wanaagsan baa laga gaadhay. conclusion-kii baan ku jiraa. marka ay jaamacaddu soo saarto aaraartii laga wada hadlayna, annaga xukuumad ahaan waxaa noo tahay la fulinteeda. waxaa la isla gartay ee dadweyne iyo culimo iyo odayaal iyo maxqameed iyo dawlad iyo shirkadaba la isla gartayna wuu fulayaa. waxaan rajaynayaa qoodiinayn saxaafaddu waxa ugu badan ee lagu celceliyo waxa hawaaro wacyigelin la'aan. wacyigelintana cid u qaabilsan waddanka waa idinna waxaanu idinka codsanaynaa waa inaad dadkeena u sheegtaan dhibaatada ayna haysataa waxay tahay oo ugu celcelisaan oo waliba ugu dartaan war xalkeeduna waa saasa ku dhaqaaqa. Axmed Iriya Iltre, wararka warbaahinta SBC, Boorama.